ku soo dhawaada channelka Somali Bitcoin. Channelkan waxaan ka wada hadlaynaa xagga cryptocurrency-gu iyo Bitcoin-ka maraya maalin kasta. Channelkan waxaa lagu talagalay dadka af Soomaaliya ku hadla adduunka meel kasta ay joogaan. Haddaad channelka ku cusub tahay, like iyo subscribe taabo si qofka lagu faa'iidaysan karo. Maalin kastana video cusub aan soo duubnaa. Aad iyo aad ba mahadsantidiin. leeyahay oo aan akhriyay CoinDesk waxaa leedahay 200 million get BTC USD protection fund that hints a investor centric trend. Hadda trendka markasta waxa weeye waxa jira waxa soconaya iminka waxa popularka dadka markasta doonayaan. Marka waxa egtay Bitcoin inuu maalin kasta korayo, trendkiisu inuu popularity inuu maalin kasta korayo, dadku inay interest yihiin oo dadku doonayaan ka faa'iidaystaan oo waxay doonayaan waxay wuxuu sameeyaa xaggan ka iibsan karaa. Maaragta waxaasna dadkan waa la socdaan. Bal maanta chatkan eegana markan article oo ku soo noqonna haddana chatka waa maalin kale chatkan maanta waxaan ka aragnaa maanta Bitcoin in yar bay dhacay oo bisha bilowgeeda waa Agosto koodeeda weeye. maanta waa bilowgeedii laakiin waad aragtaa in yar buu soo noolaanaya. markii dhaweeyay saaka waxa -5 bay halkaas -2 marka in yar buu soo noolaanaya oo soo fiirinaya. channelkan waxaan eegnaa maalin kasta Bitcoin iyo cryptocurrency xagga marayaan, waxa isbedelay xagga oo marayso, maxaa soo kordhay. marka hadda like subscribe taabo si qofka lagu faa'iidaysan karo information qaaliga maalin kasta aan bixino. marka waa inagan maanta chatkii waan eegnay ugu badnaan waxa weeyana waa Bitcoin, Ethereum, Tether, USDC, XRP aad baa lagu baqayaa. XRP okay bangeesh ka shakaysan inuu overtake sameyn doono wax oo dhan ba inuu isugu la wareegi doono markay dhinaca noqoto wax iibsada iyo wax dhinaca kala wareejin kaba. waxa XRP waa very popular isaguna research laga sameeyo waana la baaraa xaggu marayo oo informationkiisa wana baara article mid ku soo qorayaan kale halka xagga hoose ee description-ka YouTube-ka saa uga faa'iidaysataan. bal eegno maanta Bitcoin eegno xaggu chatkiisa maraya maanta day chatka dan eegno oo maanta waa day chatka wuxuu marayay shalay wuxuu marayay haddaan si fiican eegno saa fresh gareeyo shalay wuxuu marayay intaasuu marayay marka intaasuu maraya. marka waa aragtaan chatku waxay tusaysaa in yar buu yara kacay shalay qasuu dhacay haddana isagoo intaa marayay buu wuxuu dhacay 100 iyo dheeraad buu dhacay oo gini buu dhacay. waxaan waa wax marna dhacay marna kacaya. wuxuu baahantay education qofkuna akhriyo fahmo wuxuu dhacayo. wuxuu dhici karaa boqolkiiba ku xirantahay kan waxa ku marayo petrolkii gaasta ma kacday, gaasta ma jabtay, kan dadka lacag ma haysta, dadka shaqooyinka malgeeri waxa saran bay ku xirantahay. marka wanaad adigu wax la ogaataa channelka wanaad daawataa maalin kasta san hadalna waxa dhacaya. article-kan ku noqonaya maanta bal waxa uu sameyn xagga ka akhriyayna article-ka waa kan waxa lagu leeyahay the ultimate goalka la doonaya waxa weeye to regain investor confidence amid probably gonna bear market. Crypto and diverse exchange Bitgate launched 200 million fund to safeguard users' assets. Bitgate joined the growing list of crypto companies such as Binance that have taken investors to give investors trust via protection funds. marka waxa lagu leeyahay halkan markaad lacagtooda ingiliisida meesha hadday wax dhacaan dad hack lagu sameeyo adiga amba lagu xado amba hadday wax kala dhacaan lacagtooda weydiid waxa lagu xadaysataa investor protection ka adigu investor nin qof hadday wax maalgelina waxa waa lagu ilaalinaya. marka dadku waxay ku wadaadeen wax loo leeyahay Binance baa lagu daaday. Binance waa company weyn oo dadka basta wax siinaysa hadday lacagtooda luusaan hadda luusa waxa lagu jeedaa hadduu lacagtiisa meel geliyo lacagta dhacdo lagama hadlayo taas waa isaga laga wixii meel geliya hadda la waayo amba laga xado qofka la computerka hagareeyo marka waa lacagta wala saacinaya. laakiin hadduu qofku lacagta hadduu israado waxaan gelinay Bitcoin u dhaco lacagta waa dhacday lacagta ma luusin ma aragta taas oo mid kale marka taas hiima sida kale waxa lagu leeyahay wild xagan ku akhriyna
while the Bitgate chose to self-fund the entire protection fund without relying on third-party insurance policy, Binance set up this use protection insurance fund secure assets use SFAU collection. marka Bitgate waxay leedahay anigu cidna lacag kama mahanayno cidna uma baahnin annaga hadday dadkeenu hadduu lacagta laga xado amba la luuso oo wax kale weyn u dhaco annagaa siinana full protection taasuna waa wax weyn because qofku waxaa dhacaysa waad aaminaysaa ma aamintay waxaad doonaysaa deenaad adiguna markaa inaad la shaqaysid oo inaad maalgelin gelaysid Bitgate iyo Binance because waxaad isleedahay waxayga waa safe oo meel kaama qabanayaan tanu crypto dhan waa aad waa warweyn wax kale maaha qofku wuxuu dareemaya inuu safe yahay hadduu wixiisa luuso in insurance la geliyo oo combination sa celinayaan marka markaan kusoo noqonay iminka awli chatkii waa kawsaara noolanaya maanta haddana Earbish xalay dhacay laakiin markuu soo noolanaya idinka arka intan maha price yaqal waa systemka yara slowe oo yaran waa steady oo 10,000 idinka arka halkan waa ta marka haddaan fiirno dib eegno halku maraya iminka shalay taas waha intaasuu maraya marka waxaan waa ka chatkii marka aduu marba dee waxaan waqti u baahan yahay maalin kasta oon akhrina waanayna laakiin waa waqti u baahan yihiin waa wax koraya oo uu doonaya inuu qof u samro qofkii ka daacada doonaya waan waqti geliyaa waan u samraa laakiin dawaata maalin kale waa naga eegnay chatkii iyo bitcoin waxa gumar waa naga wada eegnay channelka aad bay mahadsantiin like subscribe taabta soo qofka lagu faa'iideysto mar kastaba maalin kasta video cusub soo duubnaa eegno xagu chatka marayo bitcoin waxa ku cusub waa mahadsantiin waa nabri